kuwani waa bannaanbaxyo looga soo horjeedo dilkii George Floyd, laakiin marka la fiiriyo goobta uu mudaharaadku ka dhacayay waxa uu fariin u dirayay hal qof si gaar ah. waxaan u baahannahay inuu nin weyn noqdo uu nin iska dhigo. waxaan u baahannahay inuu joojiyo dhaqanka carruurnimada ah. carruurta ayaa tuwi dirta. waa habeen burbur leh oo xaaladdu ay kacsan tahay. dibadda aqalka cad inta badan waxaa ka dhacaya mudaharaad nabadeed, laakiin dab ayaa baxaya. boolisku waxa ay gaas ku furayeen dadka isku soo baxay. waxa ay furayeen rasaas sidoo kale ay ku difaacayeen guriga madaxweynaha. mowqifkoodu waa uu caddaa, laakiin wax yar ayay ka qabteen in ay beddelaan aragtida booliiska ahayd inay xoog isticmaalaan. marna waxa ay eedaynayeen filimqaadaheenna waddooyinka ku wareegsan aqalka cad iyadoo aanay ka jirin iskuday lagu dhimayo rabshadaha. waxaa halkaasi ka jiray fawdo, dukaamada iyo gawaarida oo la burburinayay. aad ayay u adkayd in la qiyaasay in goobaha waxaasi ka dhacayeen ay tahay caasimadda Maraykanka. taasi waxaa laga yaabaa in uu qof caddaan ah lahaa. xaq ayaannu u leennahay inaannu gubno. waannu damqanaynaa. halkan ayaannu ka damqanaynaa. waa sida keliya ee ay nagu maqlayaan. waa hadal keliya, waa erayo oo keliya, waxba ma dareemayaan. shaki kuma jiro in ficilkani uu aad uga badan yahay dilkii foosha xumaa ee loo geystay nin aan hubaysnayn oo Maraykan madow ah.